nin waliba gar lihiwa waxa Soomaali kala geeyay oo goobta dhigay hadii gogol loo dhigana mid waliba isaga goosano isa siin gooshi hadaan la isu garaabin oo wax la isu garanayn oo dibta la isaga gubanayn yadana meel ku gaari maysaan oo saa baad u wadan gaawamar Geelaygu Shanbuu ahaa talagal kuma ahayn inay noqoto giraan socoto oo lagu garamo balse markii dhowr goor la isu jawaabiyay halka nala gashay waxaan go'aansanay inaan soo gabagabayno halganka gaamuray ha qarin waa qaybtii shanaad sida tooska looga soo tabiyo Cabdi Askari tiyo heestan ku qotonta shan qodob oo horay loogu soo qaadanin qaybi hore ayaa waxa lagu diidan yahay in la inkiro halgankii dheera ee tan iyo Axmed Gurey isdaba socday nin ismoodaya wuxuu ahayn baa kamida daaxirkii geela kala dareer eriyada abwaan Cabdullaahi Xawiyaan gabyaagan reejijiga oo ka dagilaadahay ergadan la isu diray ee dumarku ku jiraan ayaa wuxuu leeyahay shanta wadartood ku gaya adoon garanay mid calaf mawluhu gaariyay ku geey intaad mid garabsataan gafweeye gobaade garo hahay xirka la isugu jira waa xawayaan oo leh xuriyada beenta laga daayo dadka xiryaha lagu oodayna hal siiyo xuriyadooda galofko jabeenta qaaninkan geela kala aqoon markuu garabkeeda maro wuxuu gashadaa caqliga inay rimanto gugaaba shacabku ay ku gaajabe giraantan gaawaha loo soo wada cushay ayaa halabuuro badan lagaga tagay galgalin maran kuwa cid ay u jawaabayaan lama garan karo kuwana sugaantay godkeedii la garamareen geedaha la jiray mid Soomaali u goodinaya iyo mid kala geynaya heestani oo sarbeen badan ku duugantay ayaa abwaan xawiyaan markani toos u weeraray abwaankii curiyay silsilada ee xatooy giraantina soo xiray maadaama xarafkan hore looga sameeyay silsilada hore wuxuuna yiri talaba isagoon gorfeen iyo iska ganay warmaa taatay abwaan garami adoon gowracin murtida golaha waan soo xiray xarafkan uga goorgood kale heestan waxay siday tahay wax ragoonaya hobalka geeyiga Xariir Axmed xidigan daada yar oo markii hore baa xarkaha u furay ayaa maanta soo xiray Xariir oo difaaciya halgankii Soomaali galbeed ee naf iyo maalba la huray ee lagu soo hadal qaadin silsilada ayaa wuxuu Soomaali geesi oo Allah dhulkeena maqan goobayo inay gaaraan xornimo geerida nafta kala baqinay halganka gaamuray ha qarin waxaan marnaba liis moogaysiin karin millenniumka dadaan minjahaba soo dhigin xukunka inay maanta ismaamulayaan isbedelka maanta ka jira geeskana waa kuwa aan la malaysan karin ninkii shalay madaxa lagaga taagnaa yaa maanta kursiga fadhiya Geelaygu Shanbuu ahaa waxay soo dugdugtaba iyadoo socodka diinka waxay soo gaadhay meeshii u dambeysay iyo Xariir oo geeli la deeday u daaqayo isaguna dhaxda nuqsanay waa xiriiriyaha silsilada Cabdi Askari tiibo oo idin leh waa ilo xaraf ka dambe Soomaali geesi Allah hubo dhulkeena maqan goobayo inay gaadhaan xornimo geerida nafta kala baaqine halganka gaamuray ha qarin Soomaali geesi Allah hubo dhulkeena maqan goobayo inay gaadhaan xornimo geerida nafta kala baaqine halganka gaamuray ha qarin galofka jabeenta qaan ninkan geela kala aqoon markuu garabkeeda maro wuxuu kashadaa caqliga inay timanto gugaba shacabku ay ku gaajabixi galofka jabeenta qaan ninkan geela kala aqoon markuu garabkeeda maro wuxuu kashadaa caqliga inay rimanto gugaba shacabku ay ku gaajabixi gaban isagoon aqoon geerarka iska soo tiirshe goban isuurayn marnaba inuu kala guro rabo haddaan guuluhuba qorin gacalka Soomaali jecel inay kala gaar noqdaan muxuu goodigu taraa gaban isagoon aqoon geerarka iska soo tiirshe goban isuurayn marnaba inuu kala guro rabo haddaan guuluhuba qorin gacalka Soomaali jecel inay kala gaar noqdaan muxuu goodigu taraa
shanta wadartood ku geeya adoon garanayn mid calaf amoluhu gaariyay ku geeyeen intaad mid garabsataan kafaya goboley gaaro shanta wadartood ku geeya adoon garanayn mid calaf amoluhu gaariyay ku geeyeen intaad mid garabsataan kafaya goboley gaaro talaba isagoon gorfayn miyaa isaganay warmaha haddaad tahay abwaan garami adoon gowricin murtida golaha waan soo xidhay xarafka uga guurgood kale talaba isagoon gorfayn miyaa iskaganay warmaha haddaad tahay abwaan garami adoon gowricin murtida golaha waan soo xidhay xarafkan uga guurgood kale gabbaan isagoon aqoon geerarka iska soo tiirshee gobbaan isurayn marnaba inuu kala guro rabo haddaan guuluhuba qorin gacalka soomaalis jecel inay kala gaar noqdaan muxuu goodigu taraa gabbaan isagoon aqoon geerarka iska soo tiirshee gobbaan isurayn marnaba inuu kala guro rabo haddaan guuluhuba qorin gacalka soomaalis jecel inay kala gaar noqdaan muxuu goodigu taraa